si qalbigaaga loo dejiyo. diinta tanna qur-aankanna xaq baa lagu soo dejiyey iyo mawcida iyo wadikra, wax waane u ah iyo xusid. ilaahay wuxuu qur-aanka ku sifaynaya hada bayaanu linnaasi wahudan wamawcidatun lilmuttaqiin. idan ayuha alaxiba, waano kama wada maarano, dhammaanteen in layna waaniyaa baynu u baahannay. qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramaya isagoo ambiye waaninaya. qaala yaa nuuxu inahu laysa min ahlik inahu camalun gayru saalix falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilm inii aciduka an takuuna min aljaahiliin baa ilaahay ku yidhi. nebiyullaahi nuux oo nebiya ayaa ilaahay leeyahy inii aciduka an takuuna min aljaahiliin, waxaan kaa waaninayaa wax magaratada inaad ku biirta baa ilaahay ku yidhi. waxaa qur-aanka ilaahay kaga warramaya dadka mu'miniinta ah maray gaf ku dhaceen xadiida tilifkiya wixii la mida, yacidukum allahu an tacuuduu limilihi baa ilaah yidhi. war ilaahay wuxuu idinka waaninayaa inaad waxaasoo kale dib ugu noqotaan, limilihi abadan in kuntum mu'miniin. waxaa qur-aanka ilaahay inooga tilmaamaya kufaarta in la wacdiyo, waayo iyagu waa asxaabi alquluub bay yihiin, waa bashar. wacdigu dadka badh baa u haysta caamada in la wacdiyo, war ama brofesor ha ahaado ama miskiin suuqa jooga ha ahaado, waa insaan ma dhaafo. kahrat almacluumaat ma beddesho insaannimada. haqaafo badan inaad xambaarsantahy macnaheedu maaha inaad bini aadamnimada ka baxday. waaba ha is afuufin oo ha isbuufin. dadka badh baa u haysta hadduu PhD soo qaato iyo hadduu waxaa soo qaato afuufmo oo mooda inuu bini aadamnimadii isagu dhaafay, iyo meelaha laysku wacdiyo waxaas ay la yar tahay. ma aha sax. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy xataa gaalka qul inamaa acidukum biwaaxida, gaalo waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi hal midaa idinka laydinku waaninaya ila gaal baa ahaydeene. an taquumuu lilaahi mathnaa wafuraada uma tatafakkaruu maa bisaaxibikum min jinna in huwa ilaa nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid. idinka mid baa laydinku waaninaya. waa maxay gaalka midka lagu waaninaya? mid ama laba isu taaga saa doontaan inaad fakertaan, waa ka fakertaan risaalada iyo rususha iyo ambiyadana la soo diray. maa bisaaxibikum min jinna. dee nebi iyo nin waalane miyay isu egyihin? nebi iyo nin waalane, ninka waalane waa nimaan xikmad ku hadlayn, waa nimaan wax saxa sheegayn, waa nin arrinkiisu qasan yahay. nebina waa acqalu nnaas. waxay idhahdaan qofka nebinimada sheegtaa laba mid unbuu noqdaa: imaa akdabu alkaadibiin inuu yahay iyo inuu yahay asdaqu asaadiqiin. hadduu dhab yahay dee waa ku run sheega kii u run sheega badnaa. hadduu been yahayna waa maxay? ku been sheega kii u been badnaa buu noqonaya. labadaa qof adiga miya iskaga kaa qaldamaya? qofka dadka u beenta badan leh iyo qofka dadka u runta badan leh miya iskaga kaa qaldamaya? ha umani imise miinis ama sababood baa jiro bini aadamka loo taskareeyo inuu run kuu sheegayo iyo inuu been sheegayo. innagu dadka caadigaa baynu kala naqaanaa, ninka beenaalaha iyo maxay ninka run sheegaha. markaad muddo la dhaqanto midna baa kaa qarsoomaya. markaa nebi kaama qarsoomayo. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa gaalkaa u baahan in la waaniyo, ilmaha carruurtaa u baahan baa ilaahay leeyahy. waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu yaa bunaya laa tushrik billahi ina shirka la dulmun cadiim. ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nin la yidhaha luqmaan alxakiim oo xikmad rabbi siiyey. xikmaddiisii waxaa laynooga soo naqliyey innagoo laynoo sheegay intanba ka mid ah xikmaddiisii. dhaqankii uu kula dhaqmay ilmihiisa ayaa xikmaddii rabbi innaga inoo soo guuriyey. luqmaan oo ilmihiisa waaninaya baa la yidhi oo ku leh wiilyarahaygiiyow yaa bunay, waa tasgiir, wiilyarow laa tushrik billaah, ilaahay ha u shariik yeelin, ilaahay waxa ku lamaanaynin, waayo ina shirka la dulmun cadiim. shirkigu waa dulmi weyn. idan gaal baa la waaniyaa, oo carruur baa la waaniyaa, oo dumar baa la waaniyaa. wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faaciduuhunna baa ilaahay yidhi. gabadhii ninkeeda ku madax taagtaa war waaniya baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. gaal daaya munaafiq baa la waaniyaa. ulaa'ika aladiina yaclamu allahu maa fii quluubihim faacrid canhum wacidhum waqul lahum fii anfusihim qawlan baliiqa baa ilaahay yidhi. ta munaafiqiin ilaahay ka warramay
ayaa rabbi wuxuu yidhi nifaaqoodaa ka jeeso oo waani oo waxaad ku tidhaahdaa war xeel dheer oo lafahooda gaadha mujrimkaa la waaniyaa gaanga iyo mujrimka hays odhanin warkani waa gaange maxaa maray war waa bini aadam mahmaa facal wa facal bini aadamnimada kama bixin insaanna wacdi kama maarmo sida daraaddeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa waid qaalat ummatun minhum lima taciduuna qawman ilaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun qola asxaabu sabtigii markay 3 qaybood u qaybsameen qaar dembigay ku dhaceen qaarna way waaninayeen qaarna way iskaga aamuseen kuwii aan waxbana waanin dembigana ku dhicin baa kuwii kale la hadlay waxay dhaaheen lima taciduuna qawman ilaahu muhliku waar duul alla halaagaya maxaa ka waaninaysaan dabeetana waxay dhahdeen waxaanu u waaninaynaa 2 sababoodba annagu inaannu badbaadno daraaddeed oo aan aakhira noloo qabsanin dadka wax ma u sheegteen kuwa dhaforrada xirta iyo kuwa khamrada cabba iyo kuwa suuqa ku jira xilkayna saaran waa inaynu wax u sheegno isagoo ama ha aqbalo ama ha diida isagay u taallaa laakiin inaga xilkayna saaran waa maxay waa inaynu waaninno waanadaynu waaninayno innaguna waa ku badbaadaynaa walacallahum yattaquun iyana la arkee inay alla ka cabsadaan imisaad aragtay culammadan tabliiqa ah oo intay boob galeen dad ka soo kaxeeyey imisaa aragteen mid khamrigiisii wata soo qabtay yani waa bashar mahmaa facal wa facal waa bashar basharna waana kama maarmo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu warramayaa waanadu inay ka mid tahay asaaliibta diinta loo faafiyo idcuu ilaa sabiili rabbik bilxikma waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilih wa huwa aclamu bilmuhtadiin dadka ilaahay ugu yeedh baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam mawcida xasanana dadkaad ilaahay ugu yeedhayso xikmad kula hadal waa macquulaad shay caqliga gelaya waxaad kaloo kula hadashaa baa la yidhi waano wanaagsanna u sheeg hadday dood noqotona dood aan xagxagasho lahayn dood fiican kula dood baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay baa og baa markaa laynagu yidhi biman dalla can sabiilihi wahuwa aclamu biman ihtada dadka inta hanuunaysa iyo inta lumaysa ilaahay baa og adigu shaqo kuma lihid adiga waxa ku saaran baa nebiga la leeyahy calayhi salaatu wasalaam dadka inaad u sheegto qur-aanku wuxuu inoo sheegay qaar ambiya wacdido wacdigii diiday oo leh sawaa'un calaynaa wacadta am lam takun min alwaacidiin waa iskaga kaaya mid inaadna wacdida iyo inaadna wacdin laakiin innaga waxaa layna yidhi ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaani waitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi maxaa alle ku gebagabeeyey yacidukum lacallakum tadakkaruun ilaahay wuxuu idin farayaa baa la yidhi cadaalad iyo samo iyo qaraabo xidhiidhin iyo xumaho a ka dheeraataan iyo munkarka waxa sharcigu diido a iskaga tagtaan iyo dulmiga oo aad joojisaan war rabbi waa idin waaninayaa baa ilaahay leeyahy yacidukum lacallakum tadakkaruun waa khudbad jimco kasta inta badan aayadda aynu maqalno ilaahay wuxuu leeyahy rab baa idin waaninaya waxaana laydin waaninayaa lacallakum tadakkaruun ayuha alaxiba warkaygu wuxuu ku kooban yahay cid wal oo dunidan joogtaaba waanay u baahantay waxaad u baahantay inaad yeelato wakhti lagu waaniyo saxaabadii nebiga haweenkii baa nebiga u yimi waxay dhaha ilaahay rasuulkiisiiyow raggii baa nooga kaa xoog batay mar kasta rag baa kula jooga ee waxaad noo yeeshaa bay dhaheen wakhti annagana aadna waaniso dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sameeyey maalin gaaroo iyagana waaniyo maalin gaaruu la kulmay oo iyagana waaniyey waa xadiidkii uu u tilmaamayey tii 3 ilmood ay ka dhintaan ee sabirtay in aakhiro xijaab naareed alla uga dhigayo qof dumara istaagto waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow tii labana ku dar wasnayni markay ku celcelisay ayuu nebiguna dhowr goor ugu celiyey wasnayni nebiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaa ogeed waana kama maarantid waana marnaba kama maarantid
haddaad wadaad kitaaba soo akhrisay tahay waxaad u baahantay waana iyo wacdi inaad dhegaysato haddaad oday tahay waxaad u baahantahay waana iyo wacdi inaad dhegaysato dad dhallinyaro tahay waxaad u baahantahay waana iyo wacdi inaad dhegaysato waayo qofka insaanka la yidhaahdo ayaa qummanida tooska ahi ku dhib tahay oo aan ka maarmin in wax la xasuusiyo walidaalika waxaynu isugu imanaynaa goobaha kani wuxuu yahay inaynu waana dhegaysano siiba dhallinyarada waxaan leeyahay waddankanaad timaadeen waa waddanno khatar ah khatartiisu maaha nabadgelyadu ma xuma dhaqaaluhu ma xuma khatartiisu dhankaa maaha laakiin waxaa jooga khubaro dad ku ah dadka inay lumiyaan khabiir cid ku ah kharaa'ista sida loo kiciyo qofka bini aadamka khariisaadkiisa sida loo kiciyo cid khabiir ku ah khabiir cid ku ah shubahaadka khabiir cid ku ah inay brain wash kugu samayso waayo dowladahan iyo dadkani dad homogeneous ay u baahan yihiin dadka waa in systemka waxbarashoo dhammi asal waxa waa dadka in la maydho hadduu kaasi ku qaban waayo systemka iclaamka oo dhammi waa in dadka lagugu daro hadduu kaasina kuu taag waayo qaanuunka iyo booliiskaa kugu daraya qaanuunka waa inuu ku qabtaa idan integration baa maqli doontaan waxbaad la timi ka qaalisan waxay dadkani hayaan oo dhan oo inaad rabbi taqaano iyo sida loo caabudo wax ka qaalisan baad la timi oo ah waxyigii ugu dambeeye samada ka soo degay inaad garanayso haddaad wacdiga ka fogaato kaasi wuu kaa lumaya maalin walba marka wada tegi maysid waa dhab inta weli caqiidadu kuu nooshay waxay u badan tahay inaad marka wada tegin laakiin in yar baad u siibanaysaa in yar maalinba in baad siibanaysaa 5-6 sane markaad joogtana adiga iyo iswidhishkaba in laydinkala garan waayaabaa laga yaabaa inaad madowday uun midab bunbaa laydinku kala sooci doonaa kana waa nin madow kana waa nin cad laakiin dhaqanka iyo afkaarta iyo aragtida iyo qiimaynta iyo suu wax u arka iyo mustaqbalka iyo siduu u rajaynayay wuxuu rabo inuu qabto iyo wuxuuba waa la isku darsami doonaa haddaba isku darsankaa waxaa idinka ilaalin doona biidni illaahi tacaala waa inaad ku xidhnaato inta wacdi meel kuugu dhow iyo meelaha rabbi la isku xasuusiyo aakhiro meeshii aakhiro lagugu xasuusinayo ee rabbi lagugu xasuusinayo inaad ku xidhnaato وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين